السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي صاحب بيال مeel kasoo joogtaan iyo si walba aad noola socotaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi kooban oo aan halkan kula yeelan doono gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada marka ee gobolka Shabeellada Hoose dhinaca kalena xarun ganacsiyeedka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha waxaan su'aalo ka weydiin doonaa xaaladda xilligan ka taagan magaalada marka iyo sidoo kale arrimaha xilligan guud ahaan gobolka la isla dhaxmarayo iyo sidoo kale eedaha kala duwan ee loo jeedinayo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dhinaca kalena ah taliyaha nisa Maxamed Sheekh Xasan sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa bulshada halkaasi uu ku matalo gudoomiyaha iyo sidoo kale arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee gobolka gudoomiyaha ugu horeeya soo dhawo wadhiwa mahadsantahay waa aad idinkaga macdinaa caawa inaan xaruntaan imaado gudoomiye magacaaga saddexan noogu bilow halka ku dhalatay waxbarashadaada بسم الله الرحمن الرحيم ودانا مقعيق وحالي هذا شاعر نور علي عمر كل سبب جرى أولا الله قري مع عبد الله نور علي شاعر لكن مقعيق الصح ده شاعر نور علي وايه وحنا كل شيء دقمة كورتواري مال بادية ده وحنا هاين رير بادية أنا رير مية أصلها أنا كسر جيدا مقالدنا وحنا سوق علي وقتي أي هذه لابد يكون إيو كون سجال بقول إيو حنسوق على إيو ومقالة مركا واه قدومي مركو وحكتها قدومي وحين قري ما بالشدة ما حكت سعودة هور مرة ما حد بودع وجره نسيبونا هذه أتاس ويدسد وحا كجبا وحن ليه هي مقالة ده هذا هور مر دولتني ما كجرا لكن سوماليdu waxay tiraahdaa dhug tagtay dhamaan kuma timaado de waqti badan ay dawlad la'aan heeday gacan badan ayaa soo degmada marka ama khaasatan Shabeellada Hoose gacan badan oo isdiidan ay soo martay sidaas awgeeda in la dhiso ay nidaamkaas ka soo kabato oo dadkii deegaanka ee lahaya u dhashay ay dhismahooda ay dhidabada u taagaan muddo badan iyo sawir badan ay u baahan tahay marka taasi aan leeyahay wax badan aan degmada marka laga qabtay walow gudoomiyihii hore Cabdullaahi Cali Axmed Cabdullaahi Waafo oo wax badan uu ka qabtay waqtigii uu joogay teamkaas wax badan uu ka qabtay oo degmada hadii iskuul aan lahayd hadii wadada ay isku xirtay ceel jaalle iyo inta iyo maxaa la yiraahdaa marka hadii aan lahayd iskuul badan iskuuladii danta guud ah maxaa la yiraahdaa garoonkii kubadda cagta oo la bilaabo qayb laga bilaabay wajigiisa koowaad xaruntii degmada oo la dhisay xaruntii gobolka oo meesha lagu dhisay deegaanka ceel jaalle iyo deegaanka maxaa la yiraahdaa Shalaambood oo xarumo ay maamulada ku shaqeeyaan loo dhisay janaale deegaanka janaalo asagana sidaas oo kale loo dhisay iskuulo laga dayactiray buufuubacad oo iskuul laga dayactiray laba ceel oo ismaaquunle iyo maxaa la yiraahdaa buufuubacad iyo maxaa la yiraahdaa gandaaw ilaa iyo laga dayactiray ayagana way jiraan marka waa inta aan isdhihi karno maanta ay wax laga qabtay laakiin baahi ka badan ayaa wali jirta isbitaalkii burbursan oo caafimaadkii meel la geeyay aan lahayn adeegii aan dhameystirnayn marka sanadaha hadii wax lagu talaabsado sanadaha kale hadana in wax kale aan ku talaabsana hadana aad u rajeynayna waxyaabaha muhiimka ah ee hadda degmada ay u baahan tahay ee bulshadu ay toobayso caafimaadka ugu horeeya meel aan isbitaalka ahayn oo hadda shacabku ay ku nagaadaan oo markii culeysyo jiraan oo caafimaad meel yar oo maxaa la yiraahdaa imsaaji ah oo wax yar oo adiga bastamool iyo sharoob qadhi jaban iyo lagu geeyo way jiraan laakiin isbitaalkii guud ee degmada marka markii hore loogu imaan jiray Baraawo Kunyo Barow maxaa la yiraahdaa Tortoro maxaa la yiraahdaa Adiya Sarargooba ilaa iyo Dugulle ilaa iyo Afgoy iyo meel kasta oo diinsoor loogu imaan jiray ma jiro wuxuu u baahan yahay agab iyo dhismo casriyeen waa isbitaal lagu kor dagaalamay isbitaal maxaa la yiraahdaa waqti badan dhibaato badan ay ku kor dhacday isbitaal hadda ana fan haysan waay shaqaalihiisa hataa aysan salari qaadan marka waxa aadan dhibaatada wax yaro mushaar wax qaata mala wax yaro marar qaar kooda in joogan ayub in jooga gacanta ku hayo wax yaro ay isla markaas hadii ilaahay yiraahday oo
shalay shaqaalaha wax yaraha waay allah u naxariisto gudoomiye waafo waa geeriyooday waxaa ka dambeeyay Cusmaan Muuse gudoomiyaha magaalada ahna duqa magaalada oo xilligan hoolo kala isna wada gudoomiye ku-xigeenada yaatiin si gaar ah arrimaha bulshada magaalada inta badan waxaa la sheegaa inay saameeyaan isku dhacyo ciidan oo laba ciidan oo isla dawladda ka tirsan maxaa sababo taas hor su'aashaas oo anoona geed aan ku soo gambano aan cidna u jeedin horta sideedaba qofka bini aadam cunuga hadii subaxda iskuul loo diro berri iskuulka sabtida iskuul aad aadaysa la yiraahdo iskuula lagu ogyahay waxaan leeyahay isku dhacyada sawaha yimaadeen waa sababtaas waxaan saaraa maamulka ee degmada maxaa yeelay waxaan la isla ogeyn mar walba waxa ka imaanay dhibaato shayga waxa fiican in la isla ogaado dawladnimo waxa la yiraahdaa wada tash hadda qaranka maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliya qaranka qamiiskii maxaa la yiraahdaa golaha wasiirada way fadhiistaan ra'iisul wasaare ayaa shir gudoomiye marka xaaladaha qolo walba wasiir kastaba waxa laga wareystaa oo soo bandhigaa wax allaala wixii u qabsoomay iyo wixii u qabsoomo waayay iyo sababta ay u qabsoomo waayay maxaa la yiraahdaa hadii la isku sheego la yiraahdo sababtan maxaa berito ama saadambo ama isbuucan sababtan aan qabanayna sababtan aan sameeynayna waxaas sameeynayna qof kastoo wax buu leeyahay gudoomiye ku-xigeenada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyaha degmadan aan kala shaqeeyaa siyaasadan ninba uu taagan oo dawladda ay soo magacaawday ayaa kala shaqeeyo dhinaca qorsheynta dib u dhiska waay maaliyadda dhaqaalaha kala shaqeeya xogayaha dawladda hoose waa cashuurihii iyo dawladda hoose iyo magaalada nadaafadeedii iyo magaalada gudaheedii iyo ninka wixii kusoo kordhaa iyo ninka caawa ku geeriyooda ninka la weydi lahayo waay marka waa intaas waxaan leeyahay haddii la yiraahdo qof walba shaqada ay leedahay ha lagu tilmaamo leeskuna sheego shakhsi wuxuu leeyahay aan laga dhigin waxay tegaysaa dawladnimada intaasaa la yiraahdaa laakiin haddii shakhsiga asiga uu wax qabsado waxay ka laawna si un baa la weydiinaa annaga mana la weydiinayo waa si gooni ah yaa u saareyna maamulka dhahday maamulku waa ka wada tirsan yihiin adaa ka mid ah gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ka mid ah sidoo kale gudoomiyaha ka mid ah laamaha ammaanka ka mid ah yaa si gooni ah laamaha ammaanka haddii aan loo sheegin wixii jira aan loo sheegin wax ma lagu eedan karo laamaha ammaanka gudoomiyaha nisab markii laga soo tago gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada marka waayo anigu labadooda kale ma jecli labadooda waa walaalahay waa labaday garab laakiin wax kasta tallaabo kasta oo dhanka amniga loo qaadayo waxaa wanaagsan in dembigeeda asi loo saariyo oo asi la yiraahdo waxaasaa la sameynaa saasaa la sameynaa dhanka amnigooda inaad sugtaa lagaa rabo asiga in la yiraahdo haddii uu diido dembiga asaa iskale laamihii amniga iyo maamulkii kale ee guud oo xoogaa wax ka jira duleelo ay ka jiraan sida hadalkaaga u fahmay waa taasaa keenaysa isku dhacyada inta badan ciidamada isfaham daro haddii maamulka laba qofood ay ka timaado sabab kastoo shacab ku dhacda sidaasaa keenaysa waay waxaa rabaa si gooni ah waxaa maalmahan la eedeynayaa gudoomiye ku-xigeenka amniga taliyaha nisa si gooni ah waxaa loogu eedeynayaa in beelaha uu matalo uu lugaha haayo uusan horumar u ogoleen arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa waa nasiib wanaag aad iyo aadaan u faraxsanahay kelmadaas in la weydiin aadaan u jeclahay su-aashaas oo kale in la weydiiyo maxamed sheekh ciddii eedeysay waxaan u malaynaa cidaan xaaladda waqtiga dacbiga lagu jiro aan fahansaneyn amaanan ogeynin waxaan rabaa lugaha asiga intuu haayo cidda uu wax ka celinayo maxay haystaan horta maxayna macnaha ay leeyihiin waxaa wanaagsan haddii colaad la gelayana colaad heshiis lagu yahay dadka deegaankaas u dhashay ay heshiis ku yihiin cidda ay la dagaalamaan dagaala idii qabna inay dhahaan ay ku wanaagsan tahay laakiin haddii anigoo aan qofka asoo aanan waxba la dhihin aan waxba la yeelin haddii la yiraahdo maanta hebel habargidiroo la jiraa ama abgaalow la jiraa haddii la yiraahdo habargidir iyo abgaal waa ummadda Soomaaliyeed dawladda koonfur galbeed annaga state-ka aan ka tirsannahay ay ku leeyihiin lix xildhibaan ay ku leeyihiin wasiir ay ku leeyihiin dad adiga ay wax kaa tugaayo ma aha marka colaadna sideeda wax wanaagsan maaha dadku waxaa roon dadku waa isbarteen waa la dagaalamay wixii la yahayna waa la ogyahay dee nin hadda dagaal ka baqaayo ama cabsi ka cabsanayana mihin laakiin waxaan wanaagsan waa laga soo gudbay waa laga soo gudbay muddo 5 sano hadda waxaan ku nooleen nabadgelyaan ku wada nooleen
waana wada nooleen marka waxaan leeyahay dadka eedeynayo oo dhahayo meel maamul uu ka dhigo geel horta Soomaaliya waxay su'aalan ku weydiinaa xoolaha la dhaqdo waa saddex waa geel iyo lo iyo ari marka waxa laga yaabaa ariga inay orga badan ay ku jiraan karaan ma isdilaan maxaa la yiraahdaa laakiin geela hal rit baa lagu dayaa meel kasta ummadda Soomaaliyeed ay joogto marka meel maamul degmo uu ka jiro ayaa macnaha maamul kale oo qabiil aan garab joojina waa sida hadda Suudaan isku damco sariic maxaa way gargaarka degdegaysa shalay waa la abuur sawa loo abuur maantani waxay sababeen inay madaxweynihii hore Umar al-Bashir ayaga dadkii inqilaab ninkii loo adeegsadaa soo ahaa haddana madaxweyne ninkii hadda ay wax ku heshiiyeen laba awoodood mar walba macnaha kalsooni ay ku wada joogaan malaha laakiin anagu hadda waxaan nahay dad ehel ah oo qaraabo ah oo maamul leh koonfur galbeed hoos tago koonfur galbeed iyo macnaha gobolka Shabeellada hoos oo macnaha systemkooda uu maro oo dawladiyana waxaan rabnaa wax walba dawladnimada iyo qabiilnimadani way kala fog yihiin dawladnimada ku dhaqmeynaa dawladda meesha ka jirto iyo qabiil ahaanayna sax ma wada galayso marka haddii wax uu arko maxamed laamaha amniga asaha ay hoos tagaan madaxweynaha amnigana waa yahay tali ururka nasina waa yahay waxyaabaha qaarkood haddii uu ka gaabsado ka aamuso bari cid ku la soo xiray asaga waa oo la soo eedeynaa oo dawladda ay ku eedeynayso asaga waa marka inuu maslaxad iyo masaalix uu ka shaqeeyo wax ma ahayn marka dagaalana hor yaala dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka iyo maamulada goboleedyada dagaala hor yaala marka dagaal aan dagaalkaas ahayn furayna adana dawladda tahay raallina ka noqo waa gacmahaada isku xir marka anigu waxaan leeyahay dadka siyaabaas wado anoon hibil iyo hiblaayna aan dheyn waxaan leeyahay dagaala yaala cidi wax rabta wax doonaysa meel badanaa jirto jilib markaa xoreyso gandarsha soo aado ilaa ay buutay iyo gumaysidiid iyo maxaa la yiraahdaa nagaada weyn iyo ilaa iyo sagaarool ha timaado jikadooda ha shataano dagaalaha u furan dagaalkooda ha cilaasama ha dagaalamaan laakiin dadkii shacabkii ay wada noolaay dhexdiisa akhlalaas ka abuuraa sax maaha nin aqoon-yahan ah oo degmada ku sugnaa in la weeraray ma jirtaa habeena ka hor walaalow aniga waa ninkaas waxaa la yidhahdaa Cumrey Calaa la yidhahdaa waa nin walaalkay maxaa la yidhaahdaa waana maqlay waana ka soo maqnaa sida sababta markaan dabagalane dad walaalihiisa oo dhalinyaro oo saraakiil inay u tageen asiga iyo hub uu leeyahay ay meesha ka wadeen ay guri geeyeen markii dambena ay hubka ka reebeen ay dheheen adiga waa fasaxanta ay dheheen anigu intaasaa maqlay Cumreyni macnaha nin Soomaali waaye khaasatan dadka deegaankaas u dhasho waaye askariya masarkaala asigu sarkaal ma askarina ma waa waxaan nin macnaha nin oo dhalinyarada aqoon-yahanada deegaanka u dhasha ah oo biimaal ah oo qurbahan u safray oo qurbahan jiray qurbaha ka yimid inuu yahan ogaay wax sarkaalnimo hadda aan ku ogahay dawladda oo title uu ka hayo ma jirto hatta wala macnaha gudoomiye ku-xigeenana ma aha maamulka koonfur galbeedna warqad kama wato tan dhaxna warqad kama wato waa laakiin waxaan qiraa muwaadin waaye dalkuu leeyahay deegankuu leeyahay oo deegaanka u dhasho waaye xaqu u leeyahay xaq ayuu u leeyahay marka dadka waxyaabaha barkooda xaquuq aadanaha ma ongola qofka in lagu xadgudbo macnaha sax maaha qofka in lagu xadgudbo maxaa la yidhaahdaa cirdigiis lagu xadgudbo sharaftiis in lagu xadgudbo sax maaha xuquuq aadanaha waxyaabaha ka doodan macnaha saxaafadda haddii la caburiyo xuquuq aadanaha kamid tahay anigu fikradeydan cawada ka hadlaa hadda caawa aan kula hadlayo fikradeydan ka hadlaa anoon cidna ku xumeyneyni oo cidna aan ku xadgudbeyni fikradeydan ka hadlaa macnaha waxaa la yidhaahdaa qofka shakhsiga muwaadanka fikradiis xuras u yahay banaanbax waxaa la rabaa banaanbaxyada la dhigaayo banaanbax nabadeeda la rabaa in la dhigo qofka asagoona qof aanu ku xadgudbin oo hanta qof bani aadameedna oo dad uu leeyahay aan burburini inuu boorar soo qorto oo macnaha uu yiraahdo sida nidaam aso kii uu ka cabanayo soo meesha socdo inuu wax u geysana laga rabo waraysi Cumrey uu bixiyay haddana afkaaga waxaa ka dhimay oo kala baxay hubow gurigiisa yaalay ma hubka oo uusan maamul ka warqabin miya ama hub maamul uu ka warqabo oo lagu ogyahay hub maamul ku og anigu ma aan maqlin meel aan ku ogahayna ma jirto laakiin shakhsi uu macnaha leeyahay hubkan asiga inuu leeyahay la ii sheegay wax lagu haysto ma hubkaas ama arrin kale jirto anigu hadda macnaha arrin macnaha wax kale oo la daba socdo inay jiraan waa macquul
ninkan wuxuu yiri ayaana meesha intay iskugu yimaadeen rag waaye anigu ma rabo inaan hadda ku dheeraado ku fogaado laakiin golaha biin badbaadinta golaha biimaal niman oo team ah meesha iskugu tageen ta fikirdoodina way ka hadli karaan xoray yihiin golaha beesha biimaalna cid ay kale male aduna hadda cid kale male anna cid igala malaha laakiin wax la isku diidan yahay waxay tahay systemka meesha maamul dawladda ka jiro bari haday wax ka dhacaan waxa la weydiinaa cid maamulkaas ka ahay wax la weydiinaa marka anigu bari hadii wixii adiga geysato iyo wixii adiga lagu geysto maadaama la ii weydiinayo ina adiga aan ku ilaaliyo waajiba ay kaysaa waaya gudoomiye arrimahaas intaas kaga gudbeynaa waxaa rabaa hadii ay jirto waxaan ugu biirinaysto oo maamulka ah oo gaar ahaan amniga ah hadii ay jiraan waa ku soo dhaweena hadii kalena waa gudbeynaa ma amniga waxaan leeyahay wax kasta oo qalalaas keenaya oo badqabka dadka deegaanka keenaya amniga inay ka hortagaan si hufan inay uga hortagaan ayagoo la kaashanaya nabadoonada garaadyada caqalinta maxaa la yiraahdaa malaaqyada nabadoonada samadoonada ayagoo la culamaa u diinka ayagoo la kaashanayo inay wax walba ogeysiinayo inay si wada socod inay sameeyaan gudoomiye waxaa rabaa inaad dib ugu soo laabto beelaha halkaas dego gaar ahaan qabiilka biimaal waxaa ka dhex jiro arrinaa ka dhex jirto oo ka dhex taagan oo biimaalka in laba dhinac loo kala qaaday midna la dhahay udubaata midna la dhahay afaafaata arrimahaas maxaa kala soconaa iyo arrintaas waa aadaan u jeclahay caawa inaad i weydiisid bulshada Soomaaliyeedna meel kasto ay joogan jaleecay jareer maay maxatir inay fiirsadaan oo i dhageystaan aadaan u jeclahay anigu ma ka hadlaayo shiidle iyo shabeelle iyo makani iyo afarta cumur ma ka hadlaayo gasar iyo jinni ma ka hadlaayo waa dad la yaqaano sax ah oo la yaqaano jareer waa la yaqaana haddaan u soo noqdo biimaal maxamed xaniftiri mahdir irar Soomaali haddaan u soo noqdo anagu waxaan nahay midgaam leeyin boom leeyin yaxar leeyin maxaa la yiraahdaa dadka adiga waxyaabaha dadka kale oo la heebso amaleyn laakiin biimaal haddaan nahay waxaan nahay jareer iyo jaleec maxaa yeelay 24 saac waxa idaacadahan ka maqlaa udub iyo afaaf horta udub lagu sheegay waa xeeb afaafka lagu sheegayna waa jigoobi marka udubni aftirsiimo ma noqoto afaafni aftirsiimo ma noqoto maxaa yeelay adiga hadda wareysanayo nin biimaal maxamed ata nin ismiinata aniga hadda aad wareysanaysan nin biimaal aan ahay nin sacadaan ahay waxaan rabaa marka 24 saac dadka siyaabaha ay wax u raadiyaan waa siyaabo khaldan way waxaan rabaa inaan arintaas meel cad inaan ka istaago oo na marsiyo waxaan ogahay beelaha hadda dhahayeen jareer ayaan nahay dhahayeen inay dulmi yihiin joog macnaha biimaalka inay dulmi yihiin ana qiraayo waan u qiraa inay dulmi yihiin xaq ay leeyihiin iyo matalaadka ay leeyihiin inay sin haysin ana qiraayo maxaa yeelay qaybo kamid ah aniga mas'uul u ahay dhamaan biimaalniman mas'uul u ahay hadina si khaas ah la kala qaad hadina jilibaan mas'uul u ahay aad mas'uul u ahay laakiin hal khalad waay maxaa yeelay ninkii ismiine iyo jareer ah iyo ninkii daadow oo jareer ah iyo ninkii sacad oo jareer ah iyo ninkii dabruug oo jareer ah inay isku tagaan oo dhahaan afaafanaay sax ma afaaf aftirsiima malaha afaaf aftirsiima malaha ninka waxa la rabaa inuu yiraahdo biimalaan ahay sacadaan ahay dabroon diilaahay gacaladeeraan ahay ismiinaan ahay baahalaan ahay cabsiyaan ka ahay nin ismiinaan ahay gamaanyaan ahay shantawidaan ahay gamaanyaan ahay sidoo adigoo kale marka qofka dadka dadkiisa inuu ku feelo uu yiraahdo aniga ximanaan rabaa nin biimalaan ahay ismiinaan ahay shantawidaan gamaanyaan ahay wali ma fahanti marka sax ma ahan jaleeca kaliya inay ayaga odayaalka kaligooda ayaga ay baxaan wixii ximan ee jaleeca kaliya ay siiyaan sax ma ahan aniga waxaan ku qanacsanahay ximanta hadda aniga aan ku fadhiyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ahay nin biimaal oo sacade oo jareer in la keeno barin asaga hoostaga asana wixii rabo weydiisana ximanteedaada haasi leeyahay kan hadda oo jareerka hadda joo sacad oo sacadani aniga ina si eeday kan jaleec si eeday ina si eeday ana xaq u leeyahay ina si dagaalas xaq u leeyahay ma fahanti marka laakiin waxaan rabaa inaan macnaha kelmadaanan isdiidayso waxaan rabaa in 24 saac afaaf markii la yiraahdo sacadna wuu dagaa ismiina wuu dagaa daadowna wuu dagaa dabruuna waa dagaa marka afaafow aftirsiimida afaafka bilaab galow aniga waxaan ku udubaan ahay nin biimalaan ahay nin diraan ahay nin biimalaan ahay nin sacadaan ahay nin abroon dilaan nin gacaladeeraan ahay
وحنا ليدها شاعر نور علي عمر أوكر محاد علي جعل أدير أبرون الدين ليبر أبو غضبان أبو سعد إلى مغ كلون دقداك بيمال محمد حنفتري مهدر إلى سمار وارد لحمة ليرادا مركا هدي أفاف ليرادو سيدا ما لو أفتري كرو هدي أضب ليرادا سيدا ما لو أفتري كرو وقفك إنه يرادا ولا له بدنو قايلنا أي وان مغلا dad badan oo ku dhagan waxa arkaa maxamed sheekh nin sultaan ah waxa yiri maxamed sheekh ani sultaan kada si khaas ah sultaan kuga sax maahan waa galeena arintaas si gooni ah ugu soo laabanayna waxa rabaa abtirsimada udub iyo afaaf waxa jiro meel ay iyaga ka kala qaateen biimaalka oo labada dhinac markay arkeen in xuquuqdoodii lagu tuntay sida ay sheegayaan oo suldaankooda uu sheegay inay is urursadeen sacadkii jareerka ahaa iyo ismiinkii jareerka ahaa iyo daadowgii jareerka ahaa ay hal meel ku wada kulmeen si ay xuquuqdooda u raadsadaan sax ma maxaa keena marka arintaas sax ma macnaha dad kale ka shaqeeyay oo ka dhaadhiciyay macnaha jareer weyn ka dhaadhiciyay saxna ma walaalahay waxaan leeyahay taas sax maahan anoon walaalahay ku xad gudbayni aniga ayaga biimalan wadana magac biimal ayago fiiri yiisan xanaaqin hadda waxaan rabaa caawa kaftamayna yiisan xanaaq waxaan rabaa ayagu waxay dhahan jaleeca oromo waay anagu oromo mani oromo mani waa abtirsanayna ninkii oromo abtirsiimidiisa gelayso anigu oromo nin erer Soomaalian ahay abtirsiimideena meesha ay gelayso waa la yaqaana kan jiriirkina meesha ay gelayso waa la yaqaan aniga asi isku abtirsiimana maxaa la yiraahdaa kan hadda gacaladeerka ah oo jareerka ah gacaladeeraan iskaga soo dhicino gacaladeer ma qawada untarsana marka shaacir nuur cali عمر أبو بكر محاد علي قعل أدير واي واكس موجودة قعل أدير وكان سجالات واي كان سديدات قعل كان سديدات أدير كان كسجالات مركا كان ساعد كا وجرير كا سجال أوضح كلا ترسنا مغلس أقول قعل أدير كا كنا صف شيكتا وأنا كنا صف شيكتا قعل أدير كا وحرب مركا كهبلون سداس واي كان براس كان سداس واي كان هي اسمي كان سداس واي marka waxaan rabaa ninka soo dhihi karo war naga tagoriya adiga waxaan rabaa inay gaartaan rabaa adiga hada guuxaya ina tira war naga tagoriya reer abtiyalkii saacada baal leeyahay inaad adi tiraad laakiin marka tiraadid aniga jareeruwa macnaha afaafan ahay afaaf adiga abtir hada adiga kula hadlaad way waxaan rabaa dad gooni ama dulman ama dad jareerta biimaalka jareerta ah dhan wada dulman ma dad qayb kamid ah way ha macnaha دادو جريرتي جليعيس واسكو رعسين هي وإحنا قايلين كما تاجنا واحد دربي اسك قايله هنا ومعناها واليوم إيمانتها سي قضاء سي قايلين هاي وخلت وحبا كم جيران معنا كفر كفر قلب ده كليين حلوان كليين محل ده هذا دقمة ده وحبا كليين وحكى ليس ملا وحلكنا مرتوب مرتوى أنا وما أنت جوجا برهني كلا إيمان كرو شلس جو قفك جوجي ما أنت أنا جو سدا وحلك سدا لكن سدا صح سدا سواي لكن دد غير كيسو ظلم وجران أكل وجران وأنا هاد هي اللي هيني دد كا اسكو كوبي جلع كليس إني وحسيان أي دد جرير تود ظلم حقيقة نفتين لقى هلا أنا فيها سيد سعيد ويلي وان أبغى سلطان كي يوجاس كجود وحربا مولو عصو صون غنى تري سلطان كا صحمة وفرنك جودا ولي وحسن جوديني كي ساعد كهاي كي اسمين كهاي كي دادو كهاي أي أنتوا اسكوا سلطان إذا هيري مقص أنا ساعد أنا سلطان كيني يفرع على حاجة واي فهمت وقاس أنا ليه وقاس كيس أحمد يسد على واي مركب حربا نك ساعد كه يا نك اسمين كه ينك دادو سلطان كذا وهل هدي سلطان ديري لسمينا يعني أنا جو وده جيرو بيملي منا كسمينا كونا كسندا لكن إن ساعد كي يدادو اسمين كي يدبرو إن لسكو كانوا اللي راه إذا كجلمان إنك جريرك أنت جريري أنا من سلطان ومعناها ونفتر كذا حكمت هاي عنصر الدنيا ده إيوه قدومي ما من سنة هاي النظام كان هذا سلطان كهذا أشكتي وسلطان كانوا كويا أشكتي النظام كان أوكوري وضد كان وحكو قلقي بسنجرين مجرى نظامك هورك هوري وحكو قيب سجرين كوري أو بمال إن لم يدايو هل السلطان أولي هاي نظام كوري أو بمال لبا سلطان إليهن أو مدنا أوجاس أو مدنا نودون أو مدنا سلطان أها مجرى لبنان ودلتي هاي لبنان ودلت ها أو هالجليب أي هاي نين معناها أفاف أضبي أفاف ماشي كتمت أنا أفكينا كوروريجنا دوما ليسا معناها عبد الله عدو iyo waxay ahaayeen laba nin oo dhalatay ahaayeen labadii nin oo dhalatay nin wuxuu xukumayay dhooweyd nin wuxuu xukumayay xeebta
waxaan ku abtirsanayna wax sax ah oo macnaha biimaal maxamed xanaftir ay jidaysteen ma aheen laba shakhsi oo dhalatay ay dad macnaha suldaanadayna waaye waan aaminsanahay niman aan inkirtanahay ma ahayn laakiin laba shakhsi oo dhalatay ahaayeen labadaas shakhsi oo dhalatay dadka dhowada degan ninay maamuli jiray dadka xeebta joogani nin baa maamuli jiray laakiin ma ahayn wixii jareer ah oo xeebta joogo ninkaasaa maamulay ma ahayn wixii xeebta joogo jareer iyo jalaac nin baa maamuli jiray سردان عبد الرحمن علي عيسى اللي هذا ما هذا مركا وحيد دو جو جرير جلعني وحمام ملاي غيره كو مركا وحروا ديغان كجناله هذا نبا جوجا نبي مال محمد جو نندادو قدومي كا ومت بدنا جوجتو وبيمال محمد هو جلاع له ويصعد له دادو له اسمين له انجوا محان اي وعوا باين سؤال الربع دينا كويدي لكن سؤال أنا أسكله ها ما هذا لا ما عندي مالي سؤال هذا أسكله وقصين ودياران واي لكن وحنا روان كوري محيو دت كاس محل نكاس لوج عواي نيجري أنا هايستي نيجري وأنا قميصينه محله ده هلايا ما لا ده هاي واي أسا مسؤولية أسله أنتو جو وقتي سوق هذانا كم مش جو جلعنا سبعة دعوات أساسا كدراوي واي جانا الدق من لمد أو لكن نجلع معموله أو أي جرير يجلع قوة نولي هنا جلس وما تصالح جناله nin jareer ah oo xaka ah gudoomiye ka ah shacabka ku nool waa jareer iyo jaleeco biimaal ah sidaas si lamid ah degmo janaale lamid ah oo waxaa jiro jareer iyo jaleeco ku wada nool yihiin oo nin jaleeca madax uu ka yahay oo gudoomiye uu ka yahay tusaale la markantan aan soo qaato ha dadka meesha wada maamulo dhan waa wada jaleec laakiin dadka ku nool waa jareer iyo jaleec sidaas oo kale janaale maxaa diiday gobolka degmooyinkiisa in sidaas oo kale loo kala qaybsado kuwaas horta baaqan u jeedina anigu horta hal fikradan ka aaminsan horta hal fikradan aan qabaa anigu waxaan qabaa qofka uu xilka raadinayo wuxuu adiga Allah ka dhigo waxaan qabaa ninka xilka raadinayo inuu ku raadiyo asagoo ismiin ah baahal ah maxaa la yiraahdaa cabsiga ah baahal habargidir ah ama yabadhaal ah adeer soomana ahaado abtuuxayl ahaado asoo gamaanya ah cabdo macnaha nidaamkaas uu ku raadiyo haddii aan ku raadino jareer iyo jaleec aan ku la yiraahdo berin waan isdilaynaa laakiin waxaan rabaa labada nin inay xifaaltama karaan beri oo sacad iyo ismiin iyo dado ay xifaaltama karaan laakiin haddii aan joogaano jareer iyo jaleec haddaan joogaano anigu waxaan qabaa inaan macnaha masiibo ummadana hadda dadka jiilka soo baxa annaga ah dadka maanta garmadowga annaga ah dawada hore waxay ku dhaw jira hadda inaan macnaha yeel qofka binaad hadda dadkan afaafka sheeganaya inay jareer oo biimaal ah ay wax u yihiin oo afaaf uu wada yahay dhamaantiis ay aaminsan yihiin dadkan udubkan isla sidaas oo kale oo ay dhamaantood yihiin jaleec yihiin xibtiisa ku noolaad dadka suldaankan ha maamulo kaniyaan korangeynaa afaafkiisna afaafkiisa ma inaan meesha deegaanka inaan iskugu tagno oo aan gobol dhigano oo guddi loo saaro culimada aan la tashano odayaalka dhaqanka duubabka aan la tashano meesha la geeyo sida nidaamkaas inaan ku taas inaan sidaas aan sameeyno kama fiicno haddii aan dhahno oo aan iraad aniga waxaan qabaan kuri aniga seem ninka jareerka ninka jaleeca oo saacadka seemay yihiin aniga waxaan ka soo aniga siyaasadeed waxaan ka soo horjeedaa aniga waxaan ka soo horjeedaa labadan nin oo ninka jareer ah oo sacad iyo ismiin ah iyo daadow ah inay isku meel tagaan oo ay yiraahdeen aan diidanahay abtirsiimadani way dhumaysaa maalin walbana doodayn iyo qaylidan iyo dagaalkayn u badana jarnaalshahoo dad badan ay banaan baxayaan hadda degmada marka meelaha aad loo burburiya kamid tahay oo dad naftiisa lagu dhibaateeyey hanta lagu burburiyo hanta lagu boobay kamid tahay banaan baxa nabadeed ma helin waxaan rabaa marka dadka macnaha digil iyo mirifle jareertooda iyo jaleecooda way isdhex joogaan ayagoo sidaas ahayna ku doodayeen na allah ki dhale usab kule kan jareerka kule anoo harin ah anoo macnaha liwaay ah anoo macnaha hadama ah anoo macnaha leysaan ah asaa ku dhawaayo marka waayo dadkaas oo koonfur galbeed aan iskula noolnahay oo aan hal deegaan joogno sidaasay tahay marka annagu waxaan qabaa siyaasadna lagu soo dhex tuuro waaye inay khaldan tahan aaminsanahay annagu biimaal aan nahay abtirsiimdayna biimaal maxamed waaye in wararka qaarkood oo qadafka in la iska dhaafaan jeclahay maxaa la yidhaha on kula soo dardaarma waxaan rabaa xaq inay leeyihiin oo ay xildhibaanada federaalka in wax laga siiyo ay ka helaan maxaa la yidhahdaa beeshoodan ay ka soo galaan koonfur galbeed ay ka soo galaan degmada hadda aniga aan joogo inay ka soo galaan anigu shaacir ah waa qabaa waana ku taageera waana uga baaqaa siyaasiyiintayna iyo dhaqankayna guud ahaan baaqaan inta umarsiina waxaan rabaa dadka walaalo waaye in aan dadka laga kala dejin
meel kale loo wada maray ninkan biimaal maxamed waay ana biimaal maxamed aan ahay marka xilka waa wada leenahay 9 xildhibaan waa wada leenahay kuwa koonfur galbeed waa wada leenahay degmadana waa wada leenahay marka inta ka baxaan baydhabo kale goon wax ma looguma siinayo beeshi shanaad ma biimaal maxamed waay laf laandeer waay laakiin qaafka ay ku raadinayeen waxaan rabaa inay ku raadiyaan jiliyaan laakiin inta meeshaas la tago oo la yiraahdo waana la dulmooya oo nin sacad iyo nin daadawi nin ismiin iyo nin dabruube iska garab hadlaan anigu gaasan walaalaan nahay waan dhalanay laakiin anigu wado deegaankooda inay jareer iyo jilaac leeyihiin ma ogi macday kara laakiin anigu sacadaan ka hadlaa daadawaan ka hadlaa ismiinaan ka hadlaa jareer iyo jilaac aan leena ilaahana noo dhaliyo noo abuuray mana gafaayo hadda si kale wax kale u sheegi maayo in waxaan cadeynaa inay biimaal maxamed xaniftire yihiin oo dhalada yihiin aan cadeynaa waxaan rabaa laakiin qaabka lagu raadinayo ninka yiraahdo nin sacadana xilkaasaan doonaa inaan jira gowna mala gash male asoo dhigi karo sacad weli jilibka hoose kasoo bilaabi karo in hadda macnaha la isku tago urur la yiraahdo afaafaan nahay sax ma gudoomiye waxaa kaa rabaa siyaasiyiinta dadkan hadda xilalka haysto oo inta badan gobolka iyo federaalka iyo koonfur galbeed si kale dadka jaleecda iyo biimaalka ah ma u malaysaa inay ka gaabayeen doorkoodii ahaa inay walaalahooda dulman inay wacaan oo ay gogol u fidiyaan oo arintaas ay ka shaqeeyaan oo ay wax gartaan nacam way ka gaawayeen dadkina ayaga kala fogay hataa hadday qaateen inay wacaan oo dadka ay madax salaxinayd khaladka waa dhacay dib dama looma noqon doono inay yiraahdeen sidaasay ahayd sida daawada lagu helayo cuqdadina ay ku bixaysaa sidaas ahayd marka waa ka xumahay waana ka tiiriyada ma 4 saa walaalahay markay meesha joogsan aniga hal ma ogoliyaan kur mar walba inuu ku socdaa aniga jilbaha inay isku yimaadeen ee xaqayna u doodana jareera u doodana idaan anigu marna ma aamini mana aaminsan mana taageersan laakiin xaq ay leeyihiin inay u doodaan ninka uu yiraahdo walaalahay siyaasiyiinta ah wasiirada haystaan maxaa la yiraahdaa xildhibaanada haystaan ama state ha noqdaan ama waxa noqdaan inay dadka xaq ay leeyihiin walaalaha ah inay siiyaan jilibka subo jilibkiisa hoos u eego anigu waan qabaa fikradaas aan soo jeedinayo oo baaqa aan soo jeedinayo way ummadda in la kala dhataalama nimanka shalay kamaala oo afaaf iyo udub iyo afaaf kala maamul jiray system oo walaalnimada dadka ma kala tagsaneen dadkan cuqdada maanta ku jirta meeysan ku jirin laakiin hadda waxa dareemaysaa in taas la iska laalay la dhigay waxay u qaylinayaan sac walaalay waxay u qaylinayaan reer jareer waxay u qaylinayaan sac waay laakiin waxaan leeyahay ismiinka ku qayli sacado sacadka ku qayli daado waa ku qayli adigoo ah gamaanya guuxayow adoo gamaanya ah xilkaada raadso gamaanyahan ku raadso jilibkiis inuu la doodo oo miiska u soo saaro nabadoonka uu ka bilaabo weli si fiican waaya gudoomiye aqoon-yahankiina ma isku daydeen in arrinkan ah xalisaan oo aad dhexgashaan maadaama dadkan siyaasadda isku haystaan idinkana laydinkaga baahan yahay inaad labada dhinacba u cadaalad fashaan oo dadkan dulman aad la hadashaan dadkan iyagana dadka dulma ay la hadashaan oo aad gogol iskugu keentaan niyo ma ana dhexgelin weli laakiin hadda agtaadaan ka bilaabaa fariina waa marsiina in gogolna wadeedaan dhigaynaa degmada marka oo walaalaha aan iskugu keeni doono waan sameynaynaa inta kore ma aanan sameyni laakiin walaalkayga asaaba leeyaho wuxuu leeyahay jareerooyina shiidlana maaha shabeellana maaha makanana maaha afarta cumurna maaha jareerooyina masanka iyo tintan jareer maaha qowmiyadaad tahay abtirsiimaad leedahay inaad meel kale aadid sax maaha marka gogolnabadeed waan fidaynaynaa waxaan siyaasiyiintina waan u baaqaa maxaa la yidhaahdaa walaalahaygana midaan leeyahay walaalayaalow annagoo isku duubana wax la-nahay oo aan waxbana ahayn annagoo kala tagnini waxba kuma keenin waana isdhexdegan dhulkan waa wada leenahay haddaan isdilnini annagaa isdilni waxa aan kala faa'iideyno ma laha marka waxaan leeyahay nin kastow ninkaada kas nin walbow sumadaada waa taqaanaa baadiyaha xoolaha waa la sumdaa nin kastani nina sumado isleeyin kan jaleeca gamaanyaha iyo kan jareerka isku sumaday dhigtaan kan sacadka gacaladeerka iyo kan jareerka iyo kan jaleecana isku sumaday dhigtaan marka isku sumadaan dhiganahay isku cadabaan nahay isku dhibaan nahay aniga waxaad adiga iga rabtid oo aad leedahay ani imow anaan raadinayo kan haddiid ku qanciso hataa ani inaan ka dego anaa diyaaro kow bilaahi sacad ani aan ku bilaabo anaa diyaaro intaan ka dego oo nin jareer uu yimaado berin asi aan imaado oo si asi hor qabto waxaan u baahnaa asi aan weydii walaalnimada iyo nadiifnimada sidaasay ku jirtaa oo aad garab istaagto adoo sacad ah oo ximantaadii haysto
anoo gamaaya haddaan imaado xibinteeda u dooda leediida in ay garab istaagtay diyaar u tahay hadda mid kacdinoobe sax maahin ciddii samayso jilibkii sameeyeen waa dadka wax isku kala tagay uga tagay laakiin nin wax haysto ninka kale in isfidneey sax maahan way laakiin fikridan waxa rabaa fikridan mar walba la soo celiyo horta inaan iscayno miidiyaha inaan iska cayno sax maahan in 24 saac la yiraahdo oramo waaye nin dhaqan sheeganayo oo maxaa la yiraahdaa suldaan ninkan hadda suldaanka ah waa walaalkay ani si fiican aan aqaana degmada gudoomiye waafu ninka u geeyaan ahay gudoomiye waafu warqad gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada markaa laga soo dhigay weli waa la helaa warqadaas waa la helaa haddaan raadin waa la helaa ayuu ahaa suldaanka hadda afaafka sheeganayo maalinkaas adii afaaf hataa ma la dhihin nin biimaal maxamed nimo iskugu nimid xumitaas aan raadini waa loo magacaabay ninkii la siilayo mal waa soo baxa marooyin dhagax tuuras bilaab waxaan rabaa walaalkayga anuu leeyahay maalin walba oramaan ahay marka waxaan axad kelmadaas qadaf waayo marka xaalkeedan waa ugu fadhinaa haddii la isla qaban waxaan rabnaa ciddii dhammaan waa isla qabanaa ha yidhahdeen haddii la isla qaban in la beeniyaan rabnaa annagu orama ma nihin niman diraan nahay ilma maxamed xinaf diraan nahay dadkii nala dhashaa joogo dabruur maxmedaa joogo baajamaal maxamedaa joogo isaaq maxamedaa joogo ciisaa joogo madalowgaa joogo samaroonaa joogo dad macnaha dad abtirsiimi dadkii la dhashaa joogo kow waxaa kaloo iska dhaafay habiyaana la dhashay anigu hadda 24 saac waxaan dhahnaa de waxaa la yidhahdaa hawargidir hawegaa la yidhaha hawargidir anigu walaalana ireer samaala islana dir ireer habiye ireer aan islana adiga aniga waa u simanahay walaalaan nahay xawaadle hadda waa iskaga sukaynaa xaqiiqada dhabtanka markii laga hadlayo xawaadle waa iskaga sukaynaa wixii samaale kasoo dhacay oo dhan irir wixii samaale kasoo dhacay oo dhan waa iskaga samaynaa gardheere samaale macnaha meyle samaale intaas oo dhan waa iskaga samaynaa marka waxaa dadka walaalo waaye soomaalida sab iyo samaala la yidhaha horta waqtigii hore waxaan badan oo hadda la sheegayo ma aysan jirin soomaali waa sab iyo samaali waa sab iyo samaali wax ka badan ciddii keenayso ha keento diyaaraan u nahay abtirsimadayna nin tiis la duudsi karo ma jiro dadka waa sab iyo samaali sab ciday tahayna waa la ogyahay samaalin ciday tahay waa la ogyahay samaali waa la yaqaanaa sabna waa la yaqaanaa intaan samaali ahayna waay waa la wada ogyahay qofaan abtirsiima la lahaynin ma ay jirto marka waxaan rabaa inaan aad u xadgudbo ma rabo maadaama mas-uuliyadda aan ay saaran tahay in dhowti inay si gaara dadka ii eedayaan ma rabo gudoomiye soo gabagabeynayna baaqa ugu dambeeya baaqi ugu dambeeya waxaan leeyahay dadka inay wada noole dadka in la ixtiraamo horta xuquuqda dadka ay leeyihiin cirdigooda iyo xuquuqdooda in la ilaaliyo waa ila dhalatay waxna kuma siiyahay sax maaha waa igu abtirsataa waxna kuma siinahay sax maaha ma lagu wada noolaan karo 24 saac anaa ku maamulayna sax maaha anigu waxaan qabaa dadka xaqa ay leeyihiin in la siiyo marna jareer iska soo gala daadow marna iska soo gala sacad marna iska soo gala ismiin mar dhammaan wala wada helay ayaga naftarkood sidee ay kalsooni u dareemaan inayna maamulaan dhulkoodana ay u doodaan in la wada qiimi aan diyaar waa walaalanahay waa dhalanay ehelanahay may maalin walba lugtaa qoortagaa saara casr cusub aa la jooga teknoloji cusub aa la jooga maahan ninka nin yele ayagana halaan ka codsaa niman biimaal oo dhaladee waaye iyaysan wax hadda biimaalnimada la baraayo oo kale aysan noqon abtirsiimadaan qaldan oo qajajacdan ha iska dhaaf waxaa keenayo ururnimada keenayo haddii ninka uu barto biimaalaan ahay ismiin aan ahay reer jimaalo uu barto reer jimaalo reer hibelaan ka reer hibel uu barto sacadaan ahay ablow aan ahay reer hibelaan ka ahay barkaana ahay biyara ahay malaas adeera ahay sidaas haddii uu barto calamaxaadaan ahay reer facumriya ahay reer hawowti ahay kida haddii uu barto qofku waa abtirsanaa laakiin haddii la yidhaahdo aniga maxaa la yidhaha afaafaan ahay afaaf magac maaha meelna maaha deegaanna maaha waa udub iyo afaafa la yidhi waa xeeb igel laba qof oo isla dhalatay oo mas-uuliyiin ahaayeen oo suldaam ahaayeen sadanada noo haayeen ayaa sidaas u kala maamuli jiray dhaqan labadooda adoogooda iyo labada ay ku heshiinayeen dood igel waa lagu soo caanbaalay intaanan kusoo gaarnay doodna kama qabno waxna ka fikirda xunna kama aaminsan wixii shalay waa laga soo gudbi maanta wixii shalay waa laga soo gudbi shalay jaakadaa ma jirin shalay sarwaalkaa ma jirin saacadaha ma jirin nidaam kalaa jiri jimbaaraa lagu seexi jiray haddana wax casriyan lagu seexiyaa sidii shalay ahaa jirta beri ma aha dadkii meeshii waa kasoo gudbeen jiil cusubaa yimid system cusubaa loo gudbi guri dabaqoo la isdul saaraya yimideen waxyaaba badan ay yimideen casriyaa loo gudbi marka waxaan rabaa dadka iyagoo wada duunbaaqo dheeraan ujeeda waxay tahay jareer iyo jalaac biimalow isgamac qabsada gacmihiin isqabsada waxaan rabaa xubinta ugu sarreyso oo gudoomiye cali axmed
allahu naxariistay uu dhintay markuu dhintay ximitii ugu sarreyso biimaal duqa biimaal maxamed sheekh xasan suuri waayo marka dadka qaarkood ereyada ay isticmaalayeen labada dhinacba sax maaha kuwaba waxay leeyihiin jareeraa tahay aada wax u tahay maxamed sheekh biimaal oo dhan wuxuu yahay anaan caddaynaayo xaqiiqada dhabtana waaye biimaal culimadiisa caamadiisa wax u dhiibatay oo dhan biimaal oo dhan wuxuu yahay in jareernimig lagu riixo la yidhaha annagaadna tahay la yidhaahdo sax maaha dadka waa ugu digaa dadka ha tusinayaan leeyahay kow waxaan leeyahay dadka kale oo baraha bulshada maxamed sheekh ka aflagaadeynayay waxyaabo badan ka dhahayene war walaalkiina meeshuu usha ka soo qaaday waan ognahay meeshuu beri aan joognin waa ognahay wuxuu leeyahay danley hagefi hana ciiboobin wax baraha bulshada lagu soo qoran wax ka qaada maayo ani waa walaalkay ninka la haysta ani mihin waa walaalkay kan wax soo qorin waa walaalkay waxaan leeyahay walaalkaa ha ku xadgud waxaad u fafakanaysiin loo fakanaayene waa la gaari doonaa maalintaasay duubka si fiican loo xirto wax loo fakanayo ma lees dhimi doono waa lees gaaraa wax loo fakanaayo maxamed sheekh lugahaas naga haya colaadaas noo diiday soo maa maxaa kale waa ii sheeg marka maxamed sheekh horumarka biimaal u diiday maxaa waaye ma guriyay dhisteen iska celiyey deked ay dhisinayay ma iska celiyey elbor ay dhisinayay ma iska celiyey maxaa iska celiyey sheeg dagaalaan gelaynaa iyo hadda maahana suga dowladnimada hana deeqdo waxaan hayno maxamed sheekh uu suubiye ma jiraan laakiin tuhanay muujinayaan oo ah in ay jiraan isla laftarkiisa maxamed sheekh dagaal kula jiro dadka qaylinaya inuu dagaal kula jiro maxaa caddeynayo kole un dadka jawaabahoodu ani waxaa la dhahaa wargidra macnaha shaqey anaa la dhahaa ani ciidan ma isticmaalo ciidan ma lihin shaqadeydana ma amnin shaqadeyda ma marka qofka afkayga aniga maanta baraha bulshadaan joogsanaa waxay rabaa baraha bulshada ku qoraa afkayga anaa le fikirdeeda anaa leh waa taas waa gooni qofka fikirdiisa cabir laakiin maxamed wax caddeyn ha lagu keeno annagaa ka adag maxamed ani khaasatan ani shacaraa ka adag maxamed waa damaanad qaawiri waan leeyahay wixii laga raba anaa ka keenaya maxamed maxaa laga rabaa qofka ma kasoo wareejinayna maxamed ya gudoomiye ku-xigeenimada ma ka qaadanaya bilas u haya jirigaas u haya ya mafahad talyaanisa wax asiga u keensada waay waaya dadkaas maxamed sheekh dhaliilaayo dhinaca kale waxay taageersan yihiin gudoomiyaha degmada ma khilaaf labadooda khilaaf ka dhexeeya u kala dabqaaday aniga labadood kale ma jecli waa labadii garbood aan kuri horan wareysiga horena waa ku jiray kan haddana ma iri hadda weydiisna weli waa ku jiraana labadood khilaafaa ku jira labadooda waxay leeyihin waxa ay sameyn karaan inay isku keeneen inay sameyn karaan ha maxaa sabab marka khilaaf muxuu ka dhashay ninkan waa gudoomiye ku-xigeenkiisa in la weydiiyaa mudan in la weydiiyo ayagaa mudan markii la weydiiyaan la ogaa karaa aniga hadda waxaan sheegi kara maan haddaan dhaha maxamed sheekha qaldan dulmaan galay haddii gudoomiyaha degmada khaldan haddaan idhahdana dulmaan galay laakiin beel dhanaan nahay oo maanta jareer iyo jaleec lahaan nahay inaan soo bax culum iyo caami cir iyo cardan lahaan nahay inta soo baxno isku nimaado labadan qof oo walaalahayna cismaan weli waa nin da-yar aan u kala dab qaadno aan ka wada hadalno miis isku keeno oo culamadii iyo nabadoonadii iyo garaadyada iyo malaqdii ugaaskii iyo suldaankii ay yimaadeen intay waxay laawlahayn ay sidaas sameeyaan ayay aad ugu wanaagsanaa leed laakiin haddii la kala taageero kana dadow ka dhashay marka hal qof kaliya in lagu dhego sax maahan hal qof kale in lagu dhego sax maahan midda kaloo labaad waxyaabaha idow fiiri yaa la doogan waa la dacaroonaa layidhi waxa loo ordaayo idaa duur jiran kuri magacooda ma sheegayo wax loo socdo oo loo ordaayo waa imaanayeen dubka la xirtaan leeyahay aniga ayagaa imaanayeen bilaa sabab la-aanay ku imaanayeen bilaa sababay ku imaanayeen waa in imaanayeen waxaan leeyahay intaasaan leeyahay waxaan leeyahay reer shabeellada hoos guud ahaana baaq ujeedana reer shabeellada hoos hadday yihiin may hadday yihiin jaleec hadday yihiin jareer hadday yihiin maxatiri waxaan leeyahay maydoonte waxaan leeyahay reer shabeellada hoos inay gacmaha isqabsadaan isku tanaasulaan deegaankan waa wada leeyihin waxyaabaha badi oo dhibaatada keenayo deegaankan aan la wada laheyn oo laleeyahay dad ay leeyihin unukaa iskale rohindaa unukaa le unilena inta reer hebel walma ka leeyaan reer hebel intama deganyaan gudoomiye waahida kisiiyahay gudoomiye ku-xigeenka kisiiyahay sax maaha waxaan rabaa intaasi inay si sax ahayni dadka waa reer shabeellada hoos walaalo waaye shabeellada hoos alyaro hal gobol waaye waa wada degnaa waa ku wada noolnahay waa ku dhaqanaa owladaan ku dhalnay waalidiintayna soo deganaayeen waa ku abtirsanaa waxaan rabnaa dadka inay ku wada noolaadaan si nabadgelyo ay ku wada noolaadaan xornimo ay wada noolaadaan
layskuna tixgeliyo qof kastaba deegaanka uu joogo degmada uu joogo inuu qolada soomaalida kale inuu ku tixgeliyo ayaan baaqdheer ujeedinaa waxaan leeyahay dowlad goboleedka koonfur galbeed stateka aan ka tirsanahay baaqaan ujeedinaa waxaan leeyahay warqadaha wiiftada ah oo xasaradaha abuuraayeen waxaan leeyahay ha laga digtoonaado dadka ha laga talageliyo wax badan sidii aysan uga baaqsano colaada waxaan leenahay dowladdani dadka shacabkani waxaan leeyahay reer koonfur galbeed khaasatan reer shabeellada hoos dowladnimada hala taageero macnaheeda ma ahan ani shaacira hadda dowlad ka tirsamaha anigu weligeyga waxaad igu ogaa doontaa anoo dowlad dhaliilay ma arki doonto haddaan kursi ka deganayo dowladda waan amaanaa haddaan joogana waa amaanaa haddii ilaa dowladnimo waxay tahaan ogahay dowlad la-aan waxay ay soo aheedani waa ogahay marka waxaan rabaa wax lagu naalo dowladnimo waaye dowladda qaranka oo federaalka hala garab istaago statekan hala garab istaago dowlad goboleedka koonfur galbeed dastuuraan leedahay dastuurka sharciyada aada ha loo ilaaliyo aada umahadsantaha guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa inaad naga aqbasho codsigeena ahaa inaan ku wareysano oo arrimaha gobolka iyo guud ahaanba magaalada marka iyo deegaanada inaan ka wareysano waa kaaga mahad celinayna mar kale intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo wareysigaasi kooban oo aan halkan kula yeelanay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada marka ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kalena ah xarun ganacsiyeedka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane shaacir nuur cali aada umahadsantaha guddoomiye waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya